Assalaamu calaykum. Waxaa jira qalab loogu talagalay in la adeegsado xilliga ugxan qarxintu ay diyaar ka tahay oo ay gabadhu uurka qaadi karto. Si ay u helaan lamaanuhu uur loo diyaar garoobay waqtiga loogu talagalay la helay. Haddaba haddii aad xaas tahay isla markaana qalabkan aadan aqoon u lahayn ama aadan weligaa isticmaalin, ama sidoo kale aad u diyaar garooday dhisidda guri cusub, fadlan la daawo muuqaalkan ilaa dhamaadka oo aan uga hadli doono qalabkan waqtiga la adeegsado iyo faa'iidada uu leeyahay lamaanaha. Muuqaalkana waxa kula socodsiinaya anigoo ah Dr. Shariif Xidig. qalabka aan ka hadli doono waxaa lagu magacaabaa ovulation prediction test, kaas oo lagu ogaado xilliga ugxan qarxintu ay diyaar ka tahay si uurku talagala loo helo oo waqti lagu bixiyay. Ka hor inta aan la isticmaalin agabkan, lamaanuhu waxay u baahan yihiin in ay meel ku qortaan ama buug iyo sidoo kale calendar ay u sameystaan xilliga ama isbedelada ku yimaada caadada gabadha, sida marka ay dhiig hesho, inta uu socdo iyo waqtiga uu ka maqan yahay. Kadib markay inta ama isbedelada dhiigga gabadha ay wax badan ka ogaadaan, ayay ogaan karaan xilliga la heli karo uurka ama ovulationku oo dhici karo. Qalabkaana la adeegsan karaa. Ka hor inta aan qalabka la adeegsan, sidoo kale waxaa loo baahan yahay gabadhu inay ogtahay ama ay wax badan ka taqaano isbedelada jirkeeda, oo marka ovulationka ama ugxan qarxintu ay dhacdo waxa ay gabadhu dareentaa kuleel fara badan oo jirka ah, sidoo kale qoyaan ka yimaada xubinta taranka oo jaalle ama cadaan ah, iyo sidoo kale xanuun ama cuncun dhanka naasaha iyo caloosha. Inta kadib marka ay gabadhu calaamadaha isku aragto, sidoo kale waxaa la rabaa in ay adeegsato aqoontii u lahayd isbedelada xagga caadada ama dhiigeeda, oo gabadhu marka ay dhiigga hesho kadib ayay tiro bilaabaysaa. Tiradaasi way ku kala duwan yihiin dumarku, oo qaarna 3 maalin ayuu socdaa dhiigooda, qaarna 7 maalmood, qaarna waa u dhaxeeyaa. Marka isbedeladaas ayaa keena inay kala hormaraan ama ay isbedelaan xilliga uur helistu ama ugxan qarxintu ay diyaar ka tahay. Ugxan qarxintu waxa ay dhacdaa marka laga soo tiriyo dhiigga maalinta ay heshay gabadhu, oo la sii wado tirinta marka uu dhamaado maalinta 12aad, 13aad, 14aad, 15aad ilaa 16aad. Buugaga qaarna waxay gaarsiiyaan ilaa 17aad ayaa uurka la helaa. Marka gabadhu ama qoyska iyo sidoo kale lamaanuhu waxa ay baarayaan ama baarista ay bilaabi doonaan habeenka 12aad, ayaga oo sii wadi doona haddii ay waayaan habeenka 1aad calaamadihii muujinayay ugxan qarxinta ilaa iyo 4 maalmood ama ilaa iyo 5 maalmood marka qaar. qalabkan waxaa lagu magacaabaa ovulation prediction test. waa qalab loo adeegsado in lagu ogaado ovulationka ama xilliga ugxantu ay diyaar ka tahay oo uur qaadistu ay diyaar ka tahay. qalabkan waxa uu eg yahay kan xilliga uurka hooyadu ay hesho la baaro. qalabkan marka waxa lagu baaraa kaadida, oo gabadhu waxay soo qaadan doontaa ama lamaanuhu waxay soo qaadan doonaan kaadi xilliga ay isla yihiin marka diyaar ayay tahay ugxantu. qalabka ayay soo qaadan doonaan, waa ay gelin doonaan ama dhibco ayay ka soo qaadi doonaan oo ay ku shubi doonaan. kadib qalabka wuxuu soo muujin doonaa sida aad sawirka ka arki doontaan ilmo wajigooda faraxsan oo qoslaya ama 2 calaamad sida uurka oo kale. marka kadib ayay u howlgeli doonaan raadintii uurku talagal ah haddii alla siiyo. markii qalabku soo muujiyo calaamadaha, waxaa bilaaban doona juhdigii ama dadaalkii lagu heli lahaa uur raadinta oo aan kala joogsi lahayn. sidoo kale waxaa muhiim ah inay lamaanuhu aqoon u leeyihiin waxyaabaha u keeni kara uur raadintooda inay daahdo ama ay waayaan, iyo wax waliba oo u fududeyn kara. haddii aadan wax badan ka fahmin muuqaalka, commentiga noogu soo qor. waxaan soo diyaarin doonaa muuqaal kale oo aan uga hadli doono qaabka loo adeegsado qalabkan. qormadan iyo kuwo kale oo la xiriira caafimaad qabka qoyska iyo ciladaha soo wajaha hooyada uurka leh iyo xanaanada ay u baahan tahay, iyo marka ay dhasho kadib 6 bil ay ugu horeysa nafaqada ay u baahan tahay carruurta, waxaad ka daalacan kartaa buuggan la magac baxay qoys deeqe oo qoray Dr. Shariif Xidig. waa mahadsantihiin.